toddobaadkan horraantiisii ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay magaalada addis ababa kaga wada hadleen isbedelada gobolka geeska afrika iyo weliba wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan. wadahadalladaasi ayaa waxaa sidoo kale bogaadiyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay in muuse biixi uu aqbalay inuu si dhow la shaqeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya. haddaba si aan wax uga ogaana wixii ay labada mas-uul ka wada hadleen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxau khadka telefoonka ee magaalada addis ababa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaji maxamuud xiir faratoon. wadahadallada saarag buu ahaa maxaa tooyo dee casuumad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa casuumad rasmiga usoo fidiyey iyo martiqaad usoo fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo waftigii uu watay wasiirada iyo madaxda kaleba ahaa. waa la wada hadlay de waxyaalo badan oo danaha labada dal iyo maxaa to xidhiidhadii awalba ka dhexayn jiray iyo arrimo kale oo badanba waa laga wada hadlo oo si wanaagsan baa laisugu wada afkartay dhammaantood. arrimaha kale laga wada hadlay idinkuna shaaciseen markii dambe waxaa ka mid ahaa wadahadaladii udhexeeyey soomaaliya iyo somalilan. wadahadaladii udhexeeyey maaragtay marka maxaa laga yiri kuwa anagu waxaanu shaacinay garamaayo arrintaa ku saabsan laakiin dee kolleyba wadahadallada somalilan iyo soomaaliya inay wada hadlaan oo arrimaha isku maadhaafsanayay khilaafaadka jira iyo afkaarta siyaasadeed ee ay kala wataan laga wada hadlo waa arrimo mar walba dhaca maaha arrimo maanta bilaabmay mar walbana soo hadal qaadaa hadday aad dalalka hoolka tahay ama maxaato geeska afrika tahay iyo haddii kuwa waaweyne caalamka waa hadiyo goorda way la soo qaadaan labada kolley way la soo qaadaan somalilan dee waana ahayd qodobada lasoo qaadana waa kamid ahay. laakiin warar kalaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed isbedelkan ka socda gobolka geeska africa dartii inuu doonayo in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi uu meel wada fariisiya wada hadlaan arrintaa ma jirtaa? ra-iisul wasaaruhu inuu arrimo isbedelo uu wado oo geeska uu ka wada waa mid la wada ogyahay annaguna waa midaanu ayidsannahay oo in geeska laysku soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhaweeyo waa arrin aanu waafaqsannahay sidaana waa u sheegnay. waxaase jirtaa taa ku saabsan soomaaliya iyo somalilan ra-iisul wasaaruhu wuu soo hadal qaaday annaguna waxaanu u sheegnay inaanu mar walba somalilan haddaanu nahay aanu nabad iyo wadahadal iyo khilaafaadka soomaaliyana dhex yaalla inaanu ka wada hadalno mar walba inaanu diyaar u ahayn horena u sheegnay. iminkana ay jiraan maxaato dadaalo caalamiga oo socdo arrintaa ku saabsan in wax lagaga qabto halkaasaanu ku ekaynay anagu marka intaasubaa ka oranaya. mudday soo socdeen wadahadalladan oo turkiga hore loogu qabtay imaaraadka isku dayey ingiriiska mar buu isku dayey isku dayada oo dhan way guuldaraysanayeen. somalilandna waxay sheegaysa inay doonayso cid ka madax banaan kuwii hore oo cusub oo dhexdhexaadisa labada dhinac. marka ma la dhihi karaa ethoobiya hadda waxay noqonaysaa dhexdhexaadiyaha cusub wadahadaladii somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya? annagu cid kastoo aanu aragno inay ka daaca tahay oo qaabka ay hawsha u qabanaysaa ay tahay mid lagu gaari karo ujeedooyinkii lalahaa ee ahaa in khilaafaadka dhabta a la dhameeyo si dhaba loo dhameeyo diyaar baanu ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa cusub oo dambe ha noqoto ciddii loo arko marka la eego ajendaha iyo brograamada ay soo dhigaan iyo qaabka ay arrinta usoo qaban qaabiyaan dabcan waa somalilan diyaar bay u tahay inay aqbasho. war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu bogaadiyey aqbalaada madaxweyne biixi uu aqbalay in wada shaqayn dhow uu la yeesho dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka loo dhigay. wada shaqaynta dhow ee kusoo biirtay wadahadalka maxay ahayn haddaad fasirto? madaxweynuhu waxaan ahayn in somalilan mar walba ay diyaar u tahay in khilaafaadka soomaaliya ka dhexeeya wadahadal lagu dhameeyo wax dhaafsiisan oo arrintaa ku saabsan oo soo dhaweyn gaara iyo bahalkii oo uu yidhi ma jirto. marka waa arrimo uu si kale u baxay baan malaynayaa taas.
marka raje intee lag aad ka qabtaan wasiir in aad hor fadhiisataan oo aad xalisaan oo somalilandna ay kasoo dabacdo mowqifkan goonisutaaga ah soomaaliyana ay mowqifkan ah inay idin cadaadiso idin maquuniso oo midnimada idinku maquuniso kasoo dabacdo oo aad meel dhexe isugu timaadaan oo danta ummadda laga hadlaa raje intee lag aad ka qabtaan wax dabacsanaan iyo ismaquunin la yidhaha middo ma jiro arrinta tan laysmana maquunin karo wax dabacsanaan somaliland ay mowqifkeedii ay xorriyadeeda iyo ay ka taagnayd oo ay mataqaana ku dhawaaqday ama jiraa ma jiro somaliland waxay u diyaar tahay wadahadal iyo in si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah khilaafaadka lagu dhameeyo oo ay somaliland xorriyadeedii ku gaadho iyo mataqaana maxay tahay mowqifkeedii ay walba ay u taagnayd marka intaasun baa jirta mar walba soomaaliya un bay haytaa ka warwareegaysay anagu saan u aragno inta badan ka warwareegaysa ee diidanayd wadahadal dhaba in la isugu yimaado soomaaliya un bay hadday soomaaliya u diyaargarowdo markaas waxayna tahay inay suurtogeli karto dee in la isu yimaado marka si dhaba looga wada hadlo dhexdhexaadnimo iyo nabadgelyo wax ku dhamaadaan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo isagoo magaalada addis ababa ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga maxamed colaad